adduunku waa afar unbuu nebigu leeyahy afar qof unbaa adduunku u sugnaaday afarta qof laba waa ammaanantay labana waa ceebaysantay labada ammaanan waxaa ka mid ah addoon ilaahay maal iyo cilmi isugu daray buu nebigu yidhi addoon ilaahay uu siiyey xoolo iyo cilmi fa huwa yataqii rabbahu fiih xoolaha iyo cilmiga ilaahay siiyey rabbigiibuu kaga cabsanayaa wayasilu bihi raximah nebigu wuxuu leeyahay raximkiisana qaraabadiisana wuu ka xidhiidhinayaa ilaahay xaqa uu ku leeyahay ee zake iyo wixii la midana waa gudanaya kaasi aakhiro afdalu lmanaasil buu degayaa buu nebigu leeyahy meelaha ugu sarreeya idan jannada dhulka ugu sarreeya waxa lagu dego waxaa ka mid ah sida xadiidkani tilmaamaya rabbiga cabsidii iyo haddii ilaahay wax ku siiyo inaad xidhiidhiso dadka qaraabada ku ah xadiidka maxalu shaahidkun baynu ka soo qaadannay waxaynu u dhaafaynaa oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay acmaashii jaahiliyada la samaynayey wakhtigii islaamka ka horreeye la samaynayey oo ay ka mid tahay qaraabo xidhiidhintaa qofku hadduu islaamo inuu camalkaana xataa ajarkiisii weli uu helayo walow markuu samaynayo uu gaal ahaa laakiin markuu islaamay in laga aqbalayo walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi xakiim ibnu xasaam saxaabi la odhan jiray oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bal ka warran arrimo aan samayn jiray berigii jaahiliyada waxba ma helaya waxyaabuhu sheeganaya markaa waxaa ka mid ah silatu raximkaas aslamta calaa maa aslafta min khayr baa la yidhi aslamta calaa maa aslafta min khayr wixii aad samaysay khayr aad horu marsatay waad la islaamtay buu nebigu u tilmaamay qaraabada xidhiidhinteedu waxayn leenahay markaa waa min addiin haddaba waa goorma dadka badh baa waxay u haystaan xidhiidhintu inay tahay markay ku xidhiidhiyaan inaadna xidhiidhiso nacam taasi waa sax waa abaalgud laakiin waxa weeyaan xataa hadday ku dhibaan oo ku gooyaan adiga way kugu leeyihiin xidhiidhintii isagaa dembaabay laakiin adiga way kugu leeyihiin maxay xidhiidhintii walidalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa alwaasilu bilmukaafi waasilka ninkan silatu raximka samaynaya ninkan wax xidhiidhinaya ninka abaalguday maaha buu nebigu yidhi ninka abaalguday dee tolka markaa isku fiicantihiin iyana ay wax ku taraan adna aad wax tartee ilmaadeer iyo ilmaabtiyo habarwadaag iyo dad qaraabo isku dhowaatina wax istartaan dee waad abaalguday markaa wixii lagu tarunbaad adna wax ka celisay kaa maaha buu yidhi nebigu kaynu ka hadlaynaa kaasi waa mukaafi baa la yidhi waa nin abaal lagu lahaayo abaalkii guday laakiin kaan sheegaya walaakina alwaasilu alladii idaa quطicat raximuhu wasalahaa buu nebigu yidhi waasilku waa ka marka ay gooyaan qaraabadiisu isagu xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee qur-aankana waxaa ku taalla xaadiثatulifki markay dhacday dhacdadii been abuurka ee laga faafiyey caaisha ridwaan ullaahi calayha ee abibakar ayaa wuu dhaartay wuxuu ka dhaaranaya nimankan warkan rumaystay munaafiqiin baa warta sameeyey laakiin dadka badh baa jira warka aan hubina iska rumaystay niman muslimiin oo waaweyn oo muhaajiriin iyo ansaarba leh ayaa run mooday warkiioo faafiyey iyana waxaa ka mid ah xasan ibnu haabit shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ansaariga ahaa waxaa kaloo ka mid ah muhaajiriinta mistax ibnu ahaas waxaa ka mid ah xamna waxaa la yidhahdaa dadkii faafiye ka qayb qaatay bay noqdeen dabeeta abibakar wuxuu ka xanaaqay mistax ibnu ahaas ninkan la yidhaahdo hooyadii iyo abibakar baa habro wadaaga markaa abibakar qaraabanimo iyo tolnimo daraaddeed isaga iyo hooyadiiba isagaa biila abibakar baa wuxuu biilaa mistaxan iyo hooyadiiba abibakar baa biila isagoo abibakar labadaba wax siinaya ayuu haddana inankii wuxuu wax ka sheegay maxay caaisho ay qaraabo yihiin abibakar arrintiibuu qaadan kari waayey markaa wuxuu ka dhaartay inaanu wax damba siinin waan ku dilayaa iyo waxbaan samaynaya kale abibakar ma leh bes wax siintaydaan kaa haysanayaa buu leeyay wax damba ku siin maayo ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu ulilqurba yay ka dhaaranin ilaahay baa leh kuwa dheeraadka la siiyey iyo nolosha loo ballaadhiyey yay ka dhaaranin dadka foqorada iyo muhaajiriinta ilaahay dartii u soo hijrooday inay wax siiyaan yay ka dhaaranin baa ilaha yidhi alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum
walyacfuu walyasfaxuu ilahay wuxuu dhahay ha dhaafaan oo ha ka jeestaan miyaydaan jeclayn idinbaba ilaahay leeyay subxaana wa tacaala in ilaahay dembigiinna dhaafo idan abibakar waxaa la farayaa iyadoo mistax uu dhibta tan geystay haddana inuu weli xidhiidhiyo oo wax siiyo ayuha alaxiba waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam man sarahu an yubsita calayhi risquhu aw yunsa'a fii aharihi falyasil raximah ama man axaba an yubsata lahu fii risqihi wayunsa'a lahu fii aharihi falyasil raximah nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan wuxuu leeyahy ninkii jecel in arsaaqda loo waasiciyo cimrigana loo dheereeya tolkii ha xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam